Salaamullaahi calaykum. Guryaha ugu layaabka badan ee laga dhisto meelo cidla ah si ay dadku u raadiyaan una jecel yihiin in ay degaan ama ay ku noolaadaan magaalooyinka waaweyn ama deegaano ay ka helayaan baahiyaadkooda aasaasiga sida caafimaadka, waxbarashada iyo wixii la midka ahba. Si la mid ah, waxaa jira dad jecel in ay ku noolaadaan meelo cidla ah ay kaga fogaanayaan buuqa iyo samxadda magaalooyinka. Layaab ma aha inaad guri ka dhisato tuulo ama dhul buuraley ah, balse waxa aan fiidiyogan idinkula wadaagi doonaa guryihii ugu layaabka badnaa ee laga dhisto meelo cidla ah ama la dego ay dad ku noolaadaan ama ay fasaxyada u soo nasasho doontaan. Daawasho wanaagsan. Qoyska Ashley ee Alaska. Waxaad u malaynaysaa qoyskan inay nool yihiin casrigii hore qadiimiga ah, qaabkay u nool yihiin awgii. Qoyskan waxaa ka kooban yihiin hooyo, aabbo iyo wiilkooda 13 jir ah. Waxa ayna ku nool yihiin dhul barafley ah oo ka durugsan magaalada. Wax internet ahna ma isticmaalaan, waxayna sanadkii ka baxaan bil qura ay ku soo booqdaan familygooda. Jasiiradda Ilyaye. Waxaa lagu tiriyaa gurigan inuu yahay kuwa ugu layaabka badan ee laga dhisto dhul cidla ah. Gurigan ayaa ku yaala jasiiradda Ilyaye xidhan ee ka tirsan Iceland, waxaana la sheegaa in ay ku noolaayeen 5 qoys oo kaliya 30 sano la soo dhaafay ee qarnigii 20aad, waxayna noqotay mid laga guuray jooga dhulkeedu aad u dheeraa awgeed. Tuulada Qasalador ee ku taala jasiiradda Fajar. Way adag tahay in la fuulo jasiiraddan joogeeda oo aad u sareeya dhinaca badda iyo buuro waaweyn oo ka xiga dhinaca bariga. Sanadkii 2004 waxaa u suurta gashay dad inay fuulaan buuraha uguna gudbaan jasiiradda oo ay ku noolaadaan muddo, balse waa iskaga tageen ugu dambeyntii. Gurigii dhagaxa. Gurigan waxa uu ku yaalaa buuraleyda Portugal, dhul ay adag tahay tegitaankeedu. Gurigan ayaa ka dhisan 4 dhagax oo waaweyn, waxaana la dhisay 1974. Mana jirto wax koronto ah oo ku xidhan boosku ku yaala awgii. Ka tasqi. Noloshu waa u fududeed. Baadarigii ku noolaa keligii kaniisadda ku taala joogdheeraha ka tasqi ee bartamaha Georgia. Waxa uuna ku noolaa 19 sano fikta sare. Maalin kasta waxa uu ka soo degi jiray si uu cunto u raadsado, waxayna ku qaadan jirtay wax ka yar 20 daqiiqo ka soo degitaankeeda iyo fuulitaankeeduba. Waxa uu dhererkeeduna dhan yahay in ka badan 40 mitir. Manaaradda Bishoprok. Bishoprok ayaa lagu tilmaamaa inay tahay jasiiradda ugu yar adduunka. Ay ka dhisan tahay minaaraddaasi waxayna ku taalaa Great Britain, waxaana la dhisay 1857. Dhererkeeduna waxa uu dhan yahay 50 mitir, waxaana ku noolaa jasiiraddan raggii ilaalin jiray minaaradda. Dhismaha San Campiano. Waxa uu ku yaalaa dhismaha Torino ee Talyaaniga, waxaana laga dhex dhisay buuro dhexdeeda, iyadoo dhismaha la dhammaystiray sanadkii 1719, waxayna ahayd mid la deganaa ilaa 1736 kadib qarniyo ay xidhnayd, waxaana dib loo furay 1996.